asalaamu calaykum kusoo dhawow daawada qaybta xigta ee macluumaadka ku saabsan cali xasan salaama iyo doorkii uu ku lahaa howlgalkii sebteembarta madow. macluumaadkani kooban waa dokumentari afka ingiliishiga ah oo telefishinka aljaziira laga baahiyey. waxaa tarjumay saaxiibka bila shidane axmed. qaybta xigta waxay ku bilaabanaysaa sidan. howlgalkii sebteembartii madoobeed waxaa lagu dilay 2 Israa'iiliyiin ah waxaana lagu afduubtay 9 kale. kooxda wax afduubatay waxa ay doonayeen inay Jarmalka ay kala baxsadaan dadkii ay afduubteen, balse mas'uuliyiinta Jarmalka ayaa si qarsoodi ah u qorsheeyay inay ka hortagaan falkaasi. waxay ciidamo qaas ay ku amreen inay adeegsadaan helikobtar si ay u badbaadiyaan dadka la afduubtay. markaasi waxay ahayd markii ugu horeysay oo Israa'iil ay wada hadal ay la gasho koox ama dad kale, waxaana ay noqdeen Falastiiniyiinta. waxaana ra'iisul wasaarihii xilligaasi Israa'iil ay cadeysay inay doonayaan in wada hadal ay la galaan oo ay ka galaan arrinta dadka la afduubtay. kadib waxay dalbadeen in la cadeeyo magacyada maxaabiista ee Falastiiniyiinta ay doonayso in dadkaasi looga badasho oo Israa'iil ku xiran. kooxaha afduubka sameeyay ma aysan doonaynin inay dilaan dadka la haystayaasha ah, laakiin natiijada ayaa masiibo isu bedeshay. in ka badan 2 ka mid a dadka wax afduubka geysanaya ayaa goobta lagu toogtay kadib markii shiishayahanada dalka Jarmalka ay la dhaceen rasaas, laakiin sidoo kale waxaa garoonka ay ku dileen 9kii kale ee afduub ahaan ay u haysteen, xilligaasina ku dhex jira diyaarad helikobtar ah oo garoonka taagneyd. dadka ka badbaaday weerarka waxaa ka mid ahaa 2 la socotay dadka afduubka sameynayay, balse iyagana maxaabiis ahaan ayaa loo qabtay oo goobta ayaa lagu xiray. waxaana goobta ku dhintay ruuxii ka dambeeyay fikraddii weerarka ee ka dhacay magaalada Munich ee dalka Jarmalka. 2 bilood kadib cali xasan salaama ayaa lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay weerarkaasi ka dhacay gudaha dalka Jarmalka. waxaana wargeys laga leeyahay dalkaasi Jarmalka oo bilo yar kadib uu soo saaray in cali xasan salaama uu ka dambeeyay weerarkaasi. eedayntii ugu horeysay waxay ahayd howlgalkii 1972 ay fuliyeen. wargeys Germany ah ayaa sheegay bilo yar kadib howlgalka inuu ka dambeeyay cali xasan salaama, sidoo kalena kooxda uu hogaaminayay ayaa qayb ka ahayd. goor dambe warbaahinta Israa'iil oo soo xiganaysa xubno ila sirdoonka ah ayaa sheegtay in isaga uu lahaa qorsheynta howlgalka ee Munich oo Jarmalka ah, wuxuuna qayb ka ahaa isaga howlgalkaasi, laakiin ma uusan ahayn hogaamiyaha kooxda iyo dadka qorshaha wadayba. sidaasi waxaa yiri wariye Israa'iili ah oo la hadlay telefishinka Aljaziira. cali xasan salaama ma uusan ahayn toona hogaamiyaha iyo ruuxii ka dambeeyay weerarka, balse wuxuu ahaa ruux ku lug lahaa fikradda weerarka, sida warbaahinta Yahuudda markii dambe ay sheegtay. wuxuu qayb weyn uu ku lahaa taageerada dhanka xogaha iyo tababarada, sidoo kalena dhinacyo kala duwan ayuu kooxda ka caawiyey. Israa'iil xilligaasi waxay doonaysay in la soo afmeero howlgalka iyo isku dhacyada, isla markaana ay labada dhinac u dhaqaaqaan dhanka nabadda. Golda Meir oo ahayd ra'iisul wasaaraha Israa'iil sanadihii 1969 ilaa 74 waxay goosatay in la soo dabar jiro howlgalka iyo khilaafadaba, isla markaana dhanka nabadda loo dhaqaaqo. dhacdadii magaalada Munich ee dalka Jarmalka, ra'iisul wasaarihii Israa'iil Golda Meir waxay goosatay inay fuliyaan howlgal si arrintaasi uga argoostaan. mid ka mid ah howlgalladii ugu horeeyay ay sameeyeen wuxuu ahaa howlgalkii samata bixinta dhalinyarada, kaas oo ay sameeyeen Mossad, waxaana loogu magac daray gugii dhalinyarada Youth Spring. waxaa xubno ka tirsan sirdoonka Mossad ay doome ay ku gaareen magaalada Beirut ee dalka Lubnaan. ujeedku wuxuu ahaa in nafta ay dhaafiyaan cali xasan salaama, balse nasiib darro ma aysan maaraynin dilkiisii iyo sidii ay ku gaari lahaayeen cali xasan salaama. salaama gurigiisa waxa uu ku yiilay gudaha dhismaha safaaradda oo waardiye ay ka hayeen ilaa 16 ruux. kadibna waxay weerareen xafiiska Yaasir Carafaad, laakiin waa ay ku fashilmeen howlgalkoodii. Hani al-Hassan wuxuu diris la ahaa isaga. waxaan arkayay isaga oo gaarigiisa sii galaya. gaari Amerikaan oo ay ku jiraan sharraga ah ayaa ka dambeeyay. waxaan maleeyay in uu helay ilaaladii ama waardiyaal uu doonayay, laakiin ragga waxay ahaayeen kuwo loo soo diray inay isaga ay shirqoolaan. si kastaba ha ahaatee 30 daqiiqo oo nus saac ka hor howlgalka ayuu goobta ka baxay. sidaas daraadeed way raaceen. waxay ku biireen shirqoolidii Maxamuud Yuusuf al-Najar iyo sidoo kale Kamaal Nasir iyo isagaba. labaduna waxay ka tirsanaayeen Falastiiniyiinta. sidaasi waxaa yiri ruux aad ugu dhawaa cali xasan salaama.
muusaad waxay markaasi ay maaraysay inay qaado 13 Falastiiniyiin ah oo ay gudaha Yurub la geeyo, waxaana dabcan markii ugu horeysay dadaalkaasi uu ahaa kacaankii dhalinyarada midkii loogu magac daray si ay u awoodaan inay tagaan magaalada Beirut bartamaha habeenkii la qaaday, iyadoo ujeedadu uu ahaa inay guryahooda ay ku weeraraan 3 Falastiiniyiin ah oo aad loo doondoonayay xilligaas, kuwaas oo la sheegay markii dambe in la qaarijiyay. Cali Xasan Salaama wuxuu ahaa kuwa ugu sarreeya ee PLO ee ubaxa ah sanadihii 1960 ilaa 70, waxaana uu ka mid noqday kuwa aadka uu ugu aaminaada badan yahay Yaasir Carafaad. Sidoo kale wuxuu sameeyay kooxdii Black September oo aynu soo sheegnay in 11 ruux oo Israa'iiliyiin ah ay ku dileen magaalada Munich xilligii ay socdeen ciyaarihii Olombikada sanadkii 1972. waxaa jiray dad badan oo Israa'iil xilligaas ay ugaarsanaysay sidii ay u dili lahayd, waxaana ay ku weerartay magaalada Beirut walow mararka qaarkii howlgalladooda ay noqonayeen kuwa guuldaraystay. waxaa ka mid ahaa dadkaasi ilaa iyo dad dhowr ah oo magacyadooda lagu kala sheegay Abu Daa'ud, Al-Wadi Hadad, Maxamuud Hamshari, Wasi Sweiter, Dr. Basil Al-Qubaysi, Kamal Nasir, Kamal Adwan, Abu Yusuf Al-Najar, Maxamed Buuday, Xuseen Al-Jir iyo Cali Xasan Salaama. Muusaad waxay weerartay xafiisyada PLO iyo xafiisyo kale oo ay ku lahaayeen magaalada Beirut bilowgii sanadkii 1973, waxaana ay dileen 3 sargaal oo aad u sarreeyay, laakiin waxay ku guuldareysteen inay helaan Yaasir Carafaad ama Cali Xasan Salaama. si kastaba Muusaad waa ay sii waday inay beegsato, waxaana ay wadeen qorshahoodii ay ku ugaarsanayeen Cali Xasan Salaama, iyadoo intii uu socday ugaarsiga Salaama ay galeen bishii Juulaay sanadkii 1973 meel loo yaqaano Dalila Hamafi, waa maqaayad ku taala dalka Norway. qorshaha weerarkii maqaayadda wuxuu ahaa in sirdoonkii Israa'iil ay heleen xog ku saabsan in goobta uu ku sugan yahay Cali Xasan Salaama, oo waxa ay doonayeen inay ku qaarijiyaan goobta, laakiin waxay qaarijiyeen ruux si aada ugu ekaa Cali Xasan Salaama. mid ka mid ah qaladaadkii Muusaad wuxuu ahaa inay ku qaldameen nin Marookaan oo kabalyeeri ka ahaa maqaayadda kuna sugnaa Lillehammer oo dalkaasi Norway ku taala, iyada oo xogta la helay uu ahaa in Cali Xasan Salaama ay shirqool ahaan ay ku qaarijinayaan. ninkaasi magaciisa wuxuu ahaa Axmed Buusheyqi oo waxa uu dhashay dalka Morocco. wax luga kuma uusan lahayn howlgalladii iyo weeraradii ka dhacay magaalada Munich ee dalka Jarmalka, waxaana dilkiisa uu sababay dhibaato xagga diblomaasiyadda ah oo u dhaxaysay Israa'iil iyo Norway. howlgalkii lagu dilay Buusheyqi waxa uu ahaa mid loola dan lahaa in taargetkiisa ama bartilmaameedkiisa uu noqdo Cali Xasan Salaama, sababtuna waxay ahayd howlgalladii uu Cali Xasan Salaama uu ka sameeyay dalal Yurub ku yaala. waxa uu dhisay shabakad caalami ah, waxa xubno ama unugyo uu ku lahaa dalalka Talyaaniga, Faransiiska iyo Ingiriiska, xitaa qaar Israa'iiliyiin ah ayaa qayb ka ahaa wada shaqaynta, sida macluumaadka lagu helay markii dambe. Israa'iil waxay ahayd mid aad uga walwalsanayd inuu soo dhexgalo oo isla markaana uu ku dhex bulshada Yahuudda ah si saameyn iyo weeraradiisa ay u sii kordhaan. arrinta ugu weyn waxay ahayd in Israa'iil ay raadinaysay oo ay sugaysay inay disho ilaa sanadkii 1979 waa Cali Xasan Salaame, sababtoo ah dhan siyaasadeed iyo sidoo kale dhan kaleba ayuu saameyn ugu yeeshay. xilligaasina sidoo kale wuxuu ahaa xilligii la bilaabay eedeymihii kala duwanaa ee loo jeedinayay ra'iisul wasaarihii xilligaasi ee Israa'iil. waxaa aad ugu yaraatay in sidii hore ay howlgallo ay kaga fuliyaan gudaha qaaradda Yurub, maadaama dalalkaasi ay ka xumaadeen weerarkii Lillehammer ee dalka Norway oo lagu dilay muwaadin Marookaana. weerarkii Black September waxa uu keenay isbeddel weyn, sababtoo ah waxa uu daha u ka qaaday howlgalkan iyo cidda ka dambaysa iyo sidoo kale dadkii mas'uuliyadeeda lahaa. dhacdadii Black September ama Septembertii madoobeed waxay ra'yo caamka ay keentay in warbaahinta oo dhan ay ka dhigtay khatar weyn inay jirto. Cali Xasan Salaama oo ahaa hogaamiyaha kooxdana waxaa lagu tilmaami karayay inuu ahaa ruux aad loo doondoonayay. Karim Bakrudini oo ahaa wasiir Lubnaanees ah ayaa waxa uu dhankiisa isagoo ka hadlayay Cali Xasan Salaama uu yiri Cali Xasan Salaama wuxuu ahaa ruux aad u doondoona inuu qaarijinta uu sameeyo, isla xilligaasi waxa uu ku noolaa nolol wanaagsan oo xaas iyo damaashaad lahayd. Cali Xasan Salaama wuxuu dhibaato weyn u ku ahaa dalalka Yurub, haddana wuxuu ahaa mid ku hadla qaar ka mid ah luqadaha looga hadla qaaradda Yurub. waxa uu ahaa ruux qurxoon oo soo jiidasho leh, isaga oo marar badanna ku safray dalalka Yurub. arrinta cajiibka ahayd ayaa noqotay markii Cali Xasan Salaama ay barteen dadka adduunka, waxaana xilligaasi la sheegay inay yaqaaneen xitaa dadka sameeya xayeysiimaha dharka.
arrinta kale ee dadka dharka xayeysiiye ay ku barteen waxay ahayd inuu aad ugu wanaagsanaa dhanka labiska isaga oo u labisan jiray sida qaabka reer Falastiin ay u labistaan qaab ka duwan. arrinta kale ee bartay ayaa ahayd inuu guursaday Georgina Risky oo ahayd haweeney qurux badan oo indhaha caalamka ah ay u wada jeedeen xilligaasi. cali xasan salaama wuxuu ahaa ruux garanayay qaabka dadka loo jiito. waxa uu ka soo jeeday qoys dabeecad wanaagsan leh oo ku fiican gabyaannimada ayna u fududahay hogaaminta. waxa uu ahaa qof xul u ah doorashada sida wiil ciyaareed. dhanka kalena wuxuu ahaa qof aan qalloocnayn, howlgal wanaagsan una dagaalama masiirka Falastiiniyiinta. waxa uu ahaa qof qaangaara markii la qaadayo tilaabada ama tijaabada siyaasadeed ama military, laakiin qaab caruur ah leh xilli nololeedkiisa. waxa uu ku dhex jiray xafladiisii iyo sidoo kale damaashaadkiisii. sidoo kalena wuxuu samayn jiray karatayga iyo dabaasha uu aad u yaqaanay. sidaasi waxaa yiri wariye u dhashay dalka Jarmalka. waxyaabaha gaarka ahaa ee la sheegaa inuu samayn jiray waxay ahayd subax kasta inuu aadi jiray goobaha kubadda cagta lagu ciyaaro. waxaa kale uu jeclaa tababarashada iyo farad wadida oo aad isaga muhiim uga ahayd. wuxuu jeclaa inuu dhageysto heesaha Natkin iyo Sinatra oo jacaylka ah. sidoo kalena wuxuu dhageysan jiray heesaha Elvis Presley oo aad u jeclaa. waxyaabaha cajiibka ah ee lagu yaqaan waxaa kamid ahaa inuu ku yaraa wax aqrinta markii uu dhiganayo dugsiga sare oo uu markii uu wax yar aqriyaba uu aadi jiray shineemada, balse waxaa cajiib lahayd inuu dhibco wanaagsan uu ku bixi jiray oo uu kaga baasi jiray imtixaanaadka. dadku way jeclaayeen. wuxuu ahaa qof muuqaal wanaagsan leh. dadkii ay isla macaamili jireen aad ayay u jeclaayeen. isla markaana wuxuu ahaa qof aad u adag arrimaha qaarkood marka laga hadlayo ee howlaha ah. ammaankana mararka qaarkii waa loo baahan yahay in la adkeeyo. sidaasi waxaa warbixintiisa ku soo koobay ruux ay saaxiibo dhow ay ahaayeen cali xasan salaama. halkaa inoo joogto qaybta saddexaad ee macluumaadka ku saabsan cali xasan salaama. waxa uu ahaa documentary uu tarjumay saaxiibka Bilashadane Axmed. qaybaha kalena waxaad ku arki doontaan macluumaadyo kale oo ku saabsan cali xasan salaama. qaybta xigta intaan ku kulmi doono nabadgelyo.